Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta. Maanta waxaa idiin soo diyaarinay 5 jasiiradood oo iib ah. Cid inay iibsato rabtana aysan jirin. Sababta hadda isleedahay waa lacag. Jasiiradaha mid kamid ah ayaa waxay joogtaa $31,500 oo kaliya. Bal aan eegno sababaha mid. Nambarka 5 jasiiradda Bafeklia. jasiiradan waxay u dhowdahay magaalada caanka ah ee Venice ee dalka Talyaaniga. jasiiradan waxay ka kooban tahay 3 qaybood, waxaana ku dhex yaala kaniisad, minaarad iyo isbitaal dadka dhimirka ah. jasiiradan waxa loo gadan waayay ayaa waxa ay tahay in sanadii 1920kii isbitaalkaas la keeni jiray dadka laga tabarta badan yahay, siiba dadka la adoonsado, laguna tijaabin jiray daawooyin cusub. kadibna taasi ay sababtay in dad badan ay meeshaas ku dhintaan. xitaa waxaa la sheegaa in dhakhtarkii tijaabooyinkaas sameyn jiray inuu u adkeysan waayay kadibna minaaradda iska soo tuuray isna daldalay. ilaa maanta la joogo jasiiradan waxaa laga helaa lafihii dadkii waagaas ku dhintay. waxaa kaloo inta u dheer jasiiradan sanadihii ka dambeeyay ilaa dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka 1945 ahaa, waxaa jirtay in dadka xanuunada faafa qaba iyo kuwa xanuunada aan la aqoon qababa in jasiiradda la keeni jiray meeshaasna looga tagi jiray. bal qiyaas dhul saas u yar oo 100 qof ku dhinteen, xitaa bilaash haddii lagugu siinayo ma degi lahayd adiga. Nambarka 4 jasiiradda Palmera. jasiiradan waxay ku dhex taallaa badweynta Pacific. dhinaca koonfureedna waxay ka xigtaa jasiiradaha Hawaii. jasiiradan waxa ay leedahay garoon diyaaradeed, isbitaal iyo ceel biyo laga cabo. waxaa lagu tiriyaa jasiiradaha dunida ugu qurxoon. saas oo taana cidna ma rabto inay gadato. sababtu waxay tahay jasiiradan waxay soo martay taariikh mugdi ah. sanado hore Mareykanka ayaa ku tijaabiyay sunta nuclear, taasoo sababtay in ilaa maanta shimbiro waxaan ahayn aysan ku noolayn jasiiradan. xitaa waxaa la sheegay in qubarooyinka ay ka digeen inaan loo dhawaan shimbirahaas, kuwaasoo qofka noloshiisa halis gelin kara. Nambarka 3 jasiiradda Carol. jasiiradan waxay ku taallaa magaalada Baltimore ee dalka Mareykanka. jasiiradan ayaa ah mid u samaysan qaab 5 geesood ah oo darbi ku wareegsan yahay, waana mid bini'aadamku uu dhisay. qiimaha jasiiradda waa $31,500. jasiiradan waxaa loo dhisay inay daafic u noqoto magaalada Baltimore markii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Mareykanka 1961 ilaa 65 ahaa. kadib ciidamada ayaa ka baxay 1921 ilaa laga gaaray 1958 cidlo ayay ahayd. markaas ayaa laga gaday nin ganacsado ahaa oo rabay inuu ka dhiso maqaaxiyo, hoteelo iyo kasiinooyin qumaarka lagu cayaaro, laakiin sharciga magaalada Baltimore ayaa mamnuucaya qamaarka. ninkiina saas ayuu dib iskaga celiyay. laakiin jasiiradan lacagta lagu iibinayo waxaa ka badan lacagta ay rabto in lagu dayactiro. dawladuna ma rabto in la taabto taalada meesha ku taalo iyo dhulka taariikhiga, taasoo cayimaysa in meesha laga dhiso dhismo dad badan hoy u noqon kara. Nambarka 2 jasiiradda Daxsa. jasiiradan waxay u dhowdahay magaalada Dubrovnik ee dalka Croatia. waana jasiirad aad u qurux badan, qiimaheedu wuxuu u dhow yahay ilaa 2 milyan oo euro. sanado badan cid iibsata ayaa la la'yahay. sababta ayaa waxay tahay wixii ka dhacay meeshan dagaalkii labaad ee adduunka. bilowgii hore ee dagaalkii labaad ee adduunka, ciidamadii la isku oran jiray Yugoslavia ayaa magaalada Dubrovnik kala wareegay ciidamadii la oran jiray Nazi ee Jarmalka ahaa. kadib 300 qof oo ay ka qabteen ciidamadii Nazi oo iskugu jira askar iyo shacabba ayaa jasiiradda Daxsa la keenay oo loogu dilay si cadaalad darro ah. ilaa maanta jasiiradan waxaa laga helaa lafihii dadkii waagaas ku dhintay. jasiiradan waxaa kaloo loo yaqaanaa magacyo badan sida jasiiraddii qabuuraha iyo jasiiraddii cirfiidka. Nambarka 1 jasiiradda Musk oo afka qalaad lagu yiraahdo Snake Island. sida aan magaca jasiiradda ka fahmayno, xitaa haddaad lacag leedahay jasiiradan inaad gadato maada rabi lahayn. jasiiradan waxay ku taallaa dalka Brazil. xeebaha dalkaasna waxay ka baxsan tahay 33 kiilomitir. jasiiradan waxaa ku nool masaska ugu halista badan dunida. sidaas darteed dalka Brazil ayaa mamnuucay in la booqan karo. waxaana ku nool masas aad u halis ah oo aan laga helin dunida meelo kale. waxaa kaliya loo ogol yahay jasiiradan inay tagaan ciidamada badda dalka Brazil iyo cilmi baarayaal qaas ah. waxaa la qiyaasaa jasiiradan inay ku nool yihiin ilaa 430,000 oo mas.
taas oo macnaheedu tahay inay halkii mitirba uu hal mas joogi karo, kuwaas oo dhirirkoodu gaaro ilaa mitir barkiis. maantana waa naga intaas. waxaana nagu taageeri kartiin adinkoo subscribe dhahaya kanaalkeena, like na saara fiidiyogan.